badan gabdhaha iyo wiilal sida wanaagsan xafladda uga soo qayb gasheen tan waxay turjumaan u tahay macallin dhalinyarta reer Qaahir inay dad soo dhaweynta ku fiican sidoo kale waxaan halkan ayagana ugu mahadcelinaa Dr. Botania oo daraasaadka ulciya Afriqiya qismi luqad ah oo inta badan jecel soo dhaweynta dhalinyarta meel walba lagu martaqaadan dadka soo dhaweeyso waxaan leeyahay aad aan u faraxsanahay soo dhaweyntaada sharafeen noo tahay kulli waxaan maleynayaa 2 usbuuc ka hor iska dambeeyay seminar sidoo kale waxaan ayadana u mahadcelinaa walaashayna shirkiin xaashi nuuri aan dhihi karo walaalay waxa waaye 2012 anoo class 5 dugsi hoose class 5 galaaska shanaad aan dhageysan jiray marka maanta waxaan sugayaa maamo weyn aan yiraahdo maam seeta inaan dhaaro laakiin marka gabar iga yar arkay wax soo xogaa baad shirkiin cali soo dhawow kulli reer Arsenal waa taas filayo sanadkan waxa waaye maalintadan wuxuu ku soo aaday maalintii Muduweeka soo qaaday marka maalintii lagu xasuun doonaa maalintii Muduweeka soo qaaday Muduweeka duu wax qabowaayo bacala official waaye sidoo kale waxaan mahadcelinaa walaalkayga mustashaar سيد علي كفتماي أصلاً عدد كي نوصل بمجال لو كنا سجالي طبعاً كي أنا جو وزارة حبرشة أنا صدر تي قبل كي نوصل بالبوركة نتركيز عليها يوم ما صنتهاي وأنا كده وياسي وكله لو أنا تغير أرسان أنا جاني قدر هاي الريبل مركي تاس ماشي وجود بورك عليه ولا شيء أيضا النصر إن شاء الله ممكن لاوتد ذلك يقول لاوتد فريق وحنا وجود سائن ريارت أيين ضد في عن سودوين تأيو على سعد وقف عن إن شاء الله ورجينا إنه يوجد بسيط سو كانوا جيدا قروح بهذيك أنا ما سنتين يلا لو خلت من علم مخذي ولا يلا من اللي يخانوا الله حفل اللي يخانا وركب ما سنتين إن شاء الله أوكي نصره وفعلا محاجة أنا بدو هنا حمر حتى درس إنه هل يعني هل إيريا وده تقولين لكن محاولة قال كذي تاجر أرسنال أوكي صح تاجر أرسنال وقال أساس كحلو جرني أوكي ما شاء الله ما مسعود تحت استرو كنتي أوبي تقانا فمن كيرنا تقانا هل إيريا وده تقولين صح لكن حسب ما أقول تاجر أرسنال بس أوقات ما شاء الله صح بس كعفة يا ذنبو أوكي بس صار هذا قالنا سدحين رأس أنا عيال كلامات وركسوا كل عيال اليوم ما سنتين ما أنتينا وأنا سودوينا ولا الكي أصلا سيد ركسوا سوداد هنا وقت قاعد صورتين وأنت قاعد ما لنا وقت خسارة ما سنتين ما أنت yahay ajendaha kulanka waxa ka wada isbarasho iyo kulan oo maxaa la dhahay soo dhaweyn ah oo loo sameeyay walaashii Nasriin Xaashi Nuure fa dadka badankii way yaqaanaan gabadha waxa waaye gabar media caanka ah oo Soomaalida dhan ay taqaano marka inta aqooninne caawi baran doonta insha Allah waxa waaye Qaahir iyo Nasriin Xaashi Nuure waa u kala bixi doonaa fa marka soo dhawaada waxa rabaa in maxaa la dhahay xafladda ay noogu socoto qaab degan insha Allah ta'ala waxaan rabaa inaan ku bilaabo wax ugu wanaagsan oo lagu bilaabo aayadaha Quraanka Kariimka waxaan noo bilaabi doono Bashiir Maxamed Axmed فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم عن ذلك من الشاهدين هذا ما سنتهي بشير محمد أحمد ونوفر القرآن الكريم كأيديسا عاروا إنا محلها يحفلة جدا وقالنا مسكين حاش النور وحواي iyo maxaa la dhahay dhalinyarada reer Qaahiro caawa loo kala bixi doonaa kulankan insha Allah ta'ala marka waxaan rabaa inaan ku bilaabo gudoomiyaha jaalid Soomaaliyeed ahna gudoomiyaha jaamacadda Qaahiro Maxamed Saciid Caaqil oo maxaa la dhahay kelmadiisa qaadan doono iyo soo dhaweynta waxa waaye walaasheen Nasriin Xaashi Nuure faltafadal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام يا سلام كديب مقعي ومحمد سعيد عاقل runtii horta aad ugu faraxsan maanta ina walaasheena soo dhaweeno runtii waxa waaye waxay mudnad in inta ka badan ay mudnad in jaalida Soomaaliyeed loo soo bixiyo mudnad laakiin waqti oo ku yar awgeeda ay insha Allah intana nasiib u yeelan ina walaasheen caawa waqti fiican la qaadano walaasheen waxa waaye waxay mudan tahay doorka positive-ka ay ku leedahay media Soomaaliyeed iyo saameynta ay ku soo kordhisay dadka Soomaaliyeed iyo wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed oo haysa shaqo weyn runtii oo haysa waxay mudan tahay habaamus weyn ay mudan tahay anoo ku hadlayo magaca ardayda jaamacadda Qaahira
waa soo dhaweynayna walaasheen mar walbana garabkeedaan ahnay idinkana insha allah waxaan ka codsanaa inaa ila soo dhaweysiin insha allah intii aqoon insha allah way baran doonaan idinkana soo dhawaada walaasheenna aan soo dhaweyna waa mahadsantiin asalaamu calaykum ninkaas wuxuu ahaa maxamed siciid daaqil gudoomiyaha jaamacadda qaahiro ardayda dalka masar maxaa la dhahayay xafladeen gudaha usii galaynaa maxaa la dhahayay halkan waxaa rabaa inaan uga waco nin qaaliya siraaji shii cali oo ah la taliye sare ee arrimaha qaanuunka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka weliba ofiska gudoomiye ku-xigeenka wuxuuna ka mid yahay ninkaas ardada waxaa waaye waddankan wax ku baratay sidoo kalena jaaliyad soomaaliyeed ee dalka masar inaa la soo dhaweysaan jeclaan lahaa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore dhammaan waxaan salaamayaa dadka kasoo qayb galay xalfadan kulanka qiimaha badan ardayda media kulli waa idin mahad celinayaa waxaa aad u soo dhaweynaynaa walaashan nasra soo dhawow in badan xogtaada marna waa liisoo gaarsiiyey ahayd aadaan ugu faraxsannahay anagoo ku hadlaya afka baarlamaanka ku hadlaya aad yaad u maasan tahay teeda kale nasra xerta shacab maxadigna waa iskala midnahay adoo shaaq ka diyaaraya arka warbixin fiican videoga lii keenay anoo nasriya waa leeyahay arka aad yaad u maasantahay dhalinyarada waxaan ku baraarujinayaa in saan iskugu xirnaado oo markasta la isku soo dhaweeyo soo dhaweynta waxay wax badan baa is aragtida dee wax badanaa laga dhexlayaa marka caawa aad iyo aad ugu faraxsanaynaa in badan sii joogo waa jeclaan lahay dhankii ardada aadeyna waxaa rabaa inaan soo dhaweeyo cabdikariin cumar aadam arday sanadka ugu dambeeyey kuliyadda caafimaadka jaamacadda qaahiro gudoomiye soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ردada aad iyo aad baan idin salaamayaa waxaan kaloo aad u salaamayaa doctor Busayna Sayid maasha Allah oo ka muuqata meel walba oo Soomaali isugu timaado maasha Allah ani magacaygu waa Cabdikariim Cumar Aadan waxaan ka mid ahay ardayda waddanka in badan joogtay sanadkii 9aad u maleynaa ii socdo waxaan ka tirsanahay kulliyad tib ama kulliyadda medicine jaamacadda qaahira sanadkii u dambeeyey walaasheena ani kulley isma naqaano soo dhawow insha allah qaahiro ku soo dhawow ardayda kulankan soo abaabushayna aad iyo aad ay u mahadsan yihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi aad u mahadsan tahay cabdikariin cumar aadam arday barta kulliyadda caafimaadka sanadka ugu dambeeyay jaamacadda qaahiro kelmadayeen yaa noo socdo waxaa rabaa inaan soo dhaweeyo shirwac cabdishakuur cali afhayeenka jaaliyadda puntland ee dalka masar jaaliyadda weyn ee puntland dalka masar waxaa waaye sargaal ka socon بسم الله الرحمن الرحيم دمان مرت شرفت قروحda badan dhalinyarta mas'uuliyiinta qoyahanada aad baan u salaamaya salaanta islaamka marka labaadna kulankan waa kulan soo dhaweyn walaasheen nagu timaaday dalka Masar Nasrakiin Xaashi Nuure aad baan kugu soo dhaweynaynaa tan labaad wadanka wadan taariikh badan leh waxa rajeynaa waxyaalo badan ka faa'iidid wadan xadaariya oo wadan taariikh badan dhanka islaamka leh aad baan ugu faraxsanahay gaar walaasheen oo meediyaha aad caan uga ah oo waxyaalo badan oo anfacaya dadka soo gudbisa waxaan kaloo ku bogaadin lahaa gabdhaha reer Masar inay ma taqaanay meediyaha saas oo kale ugu daydaan oo wax weyn ka soo keenaan maanta adaan ugu matalay insha Allah brin waxa rajeynaa insha Allah gabdho kale inay ma taqaanay meediyaha ay booska kala yimaadaan waxaan ku leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba ku soo dhawow reer Masarna aad ugu fiican yihiin marti sharafta iyo soo dhaweentaba insha Allah waxaan rajeynayaa inta joogtid ina aad ugu jeclaan doontid wadankan marar badan aad ku soo laaban doontid dhalinyarta aad ka quruxda badan waxaan jeclaan lahaa isbartid waxyaalo badan wadamo badan baa soo martay insha Allah waan rajeynayaa inaad si fiican noogu sheegtid waxyaalo badan aad baan u salaamayaa aad u mahadsan tahay ninkaasna wuxuu ahaa gudoomiye shirwac afhayeenka sare ee jaaliyadda faca weyn ee puntland ee dalka masar
waxaa rabaa inaan maxaa la dhahay gudaha usii galo maxaa la dhahay khudbadeeni waxaa soo dhaweynayaa markaan waxa waaye dalxiisayaasha oo soomaalida ee waddanka masar aad u soo bateen maalmahan dambe fa waxaa rabaa inaan usoo dhaweeyo axmed nuur cusmaan oo ah dalxiise sare jamhuuriyadda soomaaliya nooga imaaday dalka masarna joogo nasrakiin oo siin doonaa kelmadiisa waranti assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladdan quruxda badan jaaliyadda reer masar qayb kusoo dhaweynaya walaasheena nasrakiin waxaan leenahay horta nasro mar labaad iyo mar saddexaad kusoo dhawow maxaan ku irahdaa waddankan masar insha allah maxaan ku irahdaa maadaama aad noogu gaaday safarka aad noogu imaatay kolley kuma dayn doono cabar oo ku haysan doonaa oo maxaan ku irahdaa adoona qaahira maxaan ku irahdaa si wacan aad u dhexgalin insha allah kuma fasix doono insha allah mar labaad mar saddexaad soo dhawow insha allah dalxiisayaashii waxaa waaye kelmadoodana waxaa qaatay shir maxaa la dhahay axmed nuur cusmaan markaan waxaa waaye qaybaha kala duwan waa siinay waxaa rabaa wax yar inaad ka dhaho nasrakiin xaashi nuuriya tahay maxaa la dhahay nasrakiin xaashi nuure dad badanaa joogo oo meeshaan waxaa waaye si fiican u garanaynin waxaa u badinayaa dhammaan waxaa waaye dadka baha sports si fiican u garanayaan haddee sports keliya maahane waxyaabo badan ay dadka yaqaanaan dad waxaa jiro oo dhankaasi siyaasadda iyo waxyaabo kale qaabilsan siyaasiyiin badan ay qaahiro leedahay dad waxaa jiro waxyaabo kale ku jiro sportska markasteeta uu ka duwan yahay waxaas nasrakiin xaashi nuure qof waxa waaye oo dhanka iyo bahda sportiga ah wax badan uga soo shaqeeyey dalka radioyada gol f m ciyaaraha f m iyo tvyo fara badan marka sidoo kaleeto in badan waxa waaye way yaqaanaan taageerayaasha kubadda cagta si wanaagsan waxaa u garanaya taageerayaasha kooxda weyne arsenal taageerayaasha arsenal meeshan taageerayaasha arsenal way joogaan aan umaleynaa taageerayaasha arsenal gacan taaga bal meesha ayaa joogo marka taageerayaasha arsenal qaahiro waxaa la dhahaa meelaha ugu badan arsenal laga taageero waaye waxaa rabaa in maxaa la dhahay intaasaa idinka dhaho ayadana way nala joogtaa wax badan bay idin sheegi doontaa caawo marka waxaa rabaa inaan kelmaddii sii wadno kolley meeshaan waxaa joogo dad kala duwan aqoon-yahano dhargarad odayaal dhalinyaro ma fahanti marka waxaa rabaa inaan siiyo markaan cabdiraxmaan cabdulaahi maxamed oo ku hadli doono magaca ardayda soomaaliyeed ee dalka masar ahna arday wax ka bartay jaamacadda azhar ee dalka masar marka hore idin salaamaa sida quruxda badan leh ee aad uga soo qayb gasheen xafladdan oo aan kusoo dhaweynayno walaasheen marna nasrakiin kusoo dhawow masar masar waa sida lagu naanayso masar waa ummi dunya marka ummi dunya kusoo dhawow waa hooyadii adduunka waanu ku faraxsannahay maanta inaad naga soo qayb gashay booqashadaada saameyn badan maadaama aad ku leedahay baraha bulshada dhammaantii waana saameysay aqoon badan aan ku leenahay xagga sportska hadday noqoto xagga bulshada qaabka aad ugu wacyigelisid wacyigelintaada oo dhammaantiina soo jiidatay waana qaybta dumarka haddii la dhaho bulshada waa qaybta ugu muhiimsan adigana qayb weyn aad ka tahay saameyntaada dumarka dhan tusaale aad u tahay ragga bulshada dhammaan waxaan kugu dhiirigelinaa inaad markaa noo sii gudbisid qodobadaasi mar kale bahda sportska maadaama tahay anagana waan nahay dhammaan dhalinyarada sportska maadaama xiiseeyaan masarne qofkii imaado waxaa la yidhi اللي شرب نيلها لازم يرجع لها مركا نيل في مصر مدام عبتي وأوصل لعبانيسا إن شاء الله مرة بدون أوصل لعبانيسا وأنا كم سنتي سودو ولا شيء هذا ما سنتهاي حالة هاي خطبة عجيبة وحواي وديبتي دوميها أسوق هلا عبد الرحمن عبد الله محمد ما عرض الصومالية دلك مصر وحاربا إنا مركان سي وريجيو بشير محمد جامع وكمل أصنع أرض ودن كان وحكة برتة جامعة وحواي أزهر أصنع كبح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ولا لا حفلتك السوقية بقالوا السلام يا
intaas ka bacdi walaasheen masrakiin waxaan leenahay soo dhawow intaan maanta caawi lagu sameeyey ka badanba waa istaashaa waana mudan tahay qof qiimaheeda intaas ka weyn yahaa tahay waxaan ku leenahay soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaad sida gabdhaha meesha joogay dadka dhallinyaradaana inay noqdaan sidaan oo kaleeto waxaan rajaynaa dad bulshada waxtar iyo anfac u leh marka kuni coacher waxaan ku leenahay soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow intaani ka badanna waa mudan tahay walaasheen soo dhawow بشير محمد جامع بوها أرضي كبحي جامعة أزهر كان مد أها dadka khudbada ka dhiibanaya kulankan lagu soo dhaweynaya walaasheen waxaan u maleynayaa markaan waxa waaye dadkii oo dhan waa hadleen marka waxaa rabaa inaan markaan u wareejiyo nasrikiin xaashi nuure oo madasha waxa waaye kulankan qofka waxa waa la iskugu yimid ah ayadaa waxa waaye kelmadeeda qaadan doonto marka ha la soo dhaweeyo sacabkiina السلام عليكم waxaa ku faraxsanahay horta caaw inaan hortiina mataqaana istaagsanahay idinkoo si qurux badan ii soo dhaweyseen soo dhaweyn aad u ballaaran kelmadihii gabdhaha way maqan yihiin laakiin anaa matali doono marka ugu horeysa waxaa aad iyo aad ugu mahadcelinayaa guud ahaan ardayda iyo aqoon-yahanada iyo dhammaantiin idinkoo mataqaana isku duuban sida quruxda badan ee aad u ajiibteen ii qadariseen inaa mataqaana halkaan igu soo dhaweysiin waa marka hore idinkaga mahadcelinayaa marka labaad waxaan u mahadcelinayaa qabanqaabayaashii juhdiga iyo mataqaana waqtiga geliyey ee ii gartay mataqaana munaasabadan caawa inay halkaan ka dhacdo marka hore qorsheyga ma ahayn inaan Masar kusoo noqnoqdo laakiin caawa wixii ka dambeeya waa kusoo noqnoqon doonaa insha Allah marka ugu horeysa magacaygu waa Nasrakiin Xaashi Nuure intaan aqoonin inta taqaano oo iga warqabtaa gabar Soomaaliyeed gabar kamid ah saxafiyiinta Soomaaliyeed mihnada saxaafadda waxaan kusoo biiray anigoo da'yar barnaamijka maaweelada caruurtaan kusoo baxay da'da waxaa waqtiga daa sheego in da' weynayna ay maleysiina ka baqa marka kadib waxbarashada secondary inta ku jira mihnada qaybtaas barnaamijka caruurta wixii ka dambeeyay waxaa iska noqday saxaafadda horta dadka yaqaanay dadka aqooninba sida oo waxa waaye ciidanka oo kale waa darajooyin ay leedahay meel hoose laga soo bilaabaa tababar qaadanaysaa dablaag noqonee kadib sargaal ilaa iyo mataqaana generaal iyo meesha ugu sareyso levels oo dhanka soo mara marka hoose aan ku soo barbaaray wixii intaas ka dambeeyay qofka saxafiga waa in lagu aamini karo inuu report diyaariyo oo dadku wax u tabiyo meega loo furo live-na loo ogolaado markaas waxaa la dhihi karaa saxafi buuxaa tahay saxaafadda dhowr qeyb ee mataqaana u kala qaybsantaa dadka inta ugu badan waxay u yaqaanaan kuleyba inta hadasho laakiin waxaa jira in ka culus oo gadaal ka taagan haddii ay tahay mataqaana kaamirada dadka haayo dadka farsamada joogo dadka mataqaana oo wararka soo diyaariyo qoro dadka edit ku sameeyo waxaas mataqaana ama qurxiyo ama tififtiro marka intaasoo dhan qofka markuu soo wada maro ama kala bar uu soo mataqaana soo dhameeyo wuxuu noqonaa qof oo xoogaa saxafi isku filan marka meediyaha xoogaa badanaa kusoo jiray intii cimrigeyga inta ugu badanaa isa leeyahay waxaa ku jiray saxaafadda waxaa marka kasoo shaqeeyey markii ugu horeysay radio codka nabadda la dhaho oo xaafadda Soobe ku yaalay I think dadka qaar inay yaqaaneen laamira Soobe 2009kii 10kii 11kii waxaa waaye qaxa mar walba jiray waa la qaxay gaabaan soo galay Hargeysa tagay Hargeysa dabcan saxafiyin yar yar ma ka shaqeyn jirin Hargeysa waa inuu qofka muuqaal ahaan weyn yahay xitaa hadda xoogaa waa ilbaxeen oo waxaa waa dad generation yar yar soo baxay social media soo baxay oo saxaafadii caadiga ahayd baka afdheer ama mataqaan wariyaasha caadiga ah ka saameyn badan marka Hargeysa markaa tagay waxaa la dhihi jiray mar walba adigu saxafi ma u qalantid gadaal u noqo barnaamijyada caruurta ruuxaas mar hore ka soo baxay dhigi jiraana dan Muqdisho imaaday TV-ga Royal la dhahan ka shaqo bilaabi jiray Royal TV marka aan ka shaqeynayay waxa iigu xogtay anoo ka shaqeynayo
inaa jaamacadna bilaabo idaacad ciyaaraha ka hadli jirto gool FM la dhihi jira imaatay ciyaaraha waxaa waaye qoys ciyaaro taageero dhalinyaro badan aan kusoo dhex barbaaro ee dhashay Arsenal fannimadana familiga ka soo qaatay ma ahane markaas kooxdii shidan iska taageeri lahaa oo kacsan oo koob qaadayso dhaqaale la geliyo mafaanti Chelsea iyo waxaas iska taageeri lahaa mafaantiin marka meeshaas Arsenal fannimadana ka soo qaatay ciyaaraha xoogaa ku yara fiicnaa marka saxaafadda qaybta ciyaaraha Janice la iga soo furo la gabar loo baahan yahay adaana marmar sameysay radio Goal FM markii ugu horeysay ana warka aqriyay maalintii oo la daahfurayay 15 May 2012 aan ahayd intaas wixii ka dambeeyay xoogaa ciyaarihii iyo waxbarashadii iyo wixii dhan waa isku waday Hope University jaamacad la dhaho aan bachelorkay ka soo qaatay Development Study and International Relation markaan dhameeyay kadib waxaan aaday wadanka Russia halkaas oo aan masterkay ku soo sameeyay International Relation and Diplomacy fildigaas ku dhex jiray laakiin macalaasaf weli kuma shaqeynin mihnadeeda saxaafadda xoogaa opportunitieskeedii balaarnaa markaa wadankii ku soo noqday iyadii si aan baqaado ku shaqeeyay ilaa haddana aan ku shaqeeyaa macnaheedu ma aha inaa waaye inaa roolkii oo aan soo bartay waxbarashada diblomaasnimada inaan ku shaqeyn waayo ma ahayn haddii aan raadiyo waa heli karay laakiin maadaama iska wadankan iska ahaa xaalad mar walba graduation iyo garab wax la isku siiyo waxaas dhaatan banaanka ku joogtaa cid walbana ma taqaana wax kugu siin kartaa kugu taqaana tan sii wado tii asi aan baqaaday marka wadanka soo noqday wax yar doorashada wadanka jirtay markii madaxweyne xasan sheekh soo noqonay ahayd waxaan ka shaqo bilaabay marka warbaahinta asal TV asala marka waxa uu ahaa xafiiska public relation kana u fadhiyay producerna waa marmar wax soo saari jiray asal kadib hal sano contract siiyay ayadoo ii dhamaana ka tagay maadaama shaqooyin kale soo baxeen dawladda gaar ahaan qaybteedii sportiga dhinac ka galay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xafiiskeeda warbaahinta ama media jooga media officerka wasaaradda ahay insha Allah wixii arrimo sportis ah iyo wixii arrimo dhalinyarada qaban doontiin ina il gaar idinku fiirino idin kala shaqeyn doonaa ka wasaarad ahaan intaas kadib gelinka dambana waxaan ka shaqeeyaa company arrimaha tiknoolajiyada ka shaqeeyo asna Nova Technology la dhaho dabcan asagana qaybta media waxa u jooga oo advisor of media oo ahay Nova dabcan waa company tiknoolajiyada land management system wax la dhahay ka shaqeeyaan oo arrimihii dhulka ay manage gareeyaan waagii hore Soomaali problemka ugu badan dililka ugu badan wuxuu ka dhici jiray dhulka maadaama la isku qabsanayo dhul bangiyada kale rafaad ay ku qabi jireen markii dadka rahan siinayaan qofkan sabar loogu keensanaya ayadoo deyntii lagu leeyahay inuu gudo sabar loogiyo qaadana gobolku tagaa wixii leeyahay sabar loogiga lumay waa loo cusboonaysiina gurigiina uu gadanaya hadhow bangigii iyo qofkii guriga gatay aqoonta isku galay qofkan wadanku ka tagay ama xaalad kale oo iska galayba ma wala yaqaanaba problemadaas ay jiray marka land management system waxa la dhahay abuureen qofkii rabo inuu dhul gato kale xafiis gobolku yaalo tagaya wuxuu baxsana khidmad yar dhulkii waa loo fiirinaya marka waxa loogu fiirinaa dhulkan rahan ku jira waa murna ka jiro oo waa la isku haystaa ama ma taqaanaa dhulkan waa safe waa gadan kartaa waa nadiif waxaan u fududeynay markii qofka sabar loo gees uu qaato waagii hore qof raaci jiray dhulka soo tusi jiray inta badan magaalada banaankeedii iyo goofafkii iyo waxaas dhulka laga gataa dib uu ku qabi jiray qofka laakiin hadda QR code ugu dhagan taleefkiisa hagaayba automatically wuxuu tagaa goobtii marka waxyaabaha wadanka ay horumarka wadanka soo kordhay qayb ka tahay oo company-gaas uu ka shaqeeyaa sidoo kale arrimaha doorashooyinka hadda systemyada iyo waxaas asaga shaqeeyo oo wadanka ka qaban doono registration voterka hadda oo wada marka company-gaasna dhinaca kala shaqeeyaa waxyaabaha aadka ma taqaanaa oo interest gareenayo waa dadka arrimaha tiknoolajiyada iyo aadka ugu fiican priority fiican ay siinayaan gaar ahaan ardayda dibadda ee wadanka dib ugu soo noqdo insha Allah asagana wixii tiknoolajiyada ka qalin jabiyo wadanka imaado waa ku soo dhaweyn doonaa intaas kadib wasaaradda dhalinyarada iyadana markii ugu horeysay waagii hore waxa loo dhiibi jiray dad aad u daaweyn wasiiro waaweyn ay maan jiray wasaaradda dhan lama arki jirin marka waxay iska ahayd goob oo ma taqaana shaqadeeda iska hooseyso caadiyan waa wasaaradda ugu budgetka yar wasaaradaha dalka waana wasaaradda dadka ugu badan ma taqaana iyada ay hoos joogto dadka ugu badan iyada ma taqaana maadaama dhalinyaro boqolkiiba 70 ama markii laga tago waxaa rabaa maanta dhan gabdhaha miyay hadlin inaa gabdhaha kelmadooda siiyo waxaa soo dhaweynaa Xayaad Cusmaan oo ah gabar waxa way ku hadli doonta afka gabdhaha maxaa la dhahay kulanka Xayaad Cusmaan soo dhawaaw
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلامي أمرك وجو رئيسة أنا وحياي أرضيت جامعة عين شمس جورناليست دقت آخر سنة إن شاء الله وسود وين ولا شيء وسود وين ولا شيء نسركين وحنكلي قاهرة كسود ولا فضلت كمش شكرا ورسالة أنت اسمع لي يعني